Tucker's comments were fascinating for a number of reasons, including that, Tucker is one of the reasons that J.D. Vance is vice president. Tucker Carlson hosted J.D. Vance on his show a lot. waxa la isku beenguuro oo la qarqariyaba hadda waxaa banaanka soo cadaatay in Donald Trump iyo waliba ku-xigeenkiisa J.D. Vance ay si toos ah isku dirreen dagaal ayaa ka dhex qarxay iyada oo waliba waxyaabo ay isku dirreen ay yihiin dagaalka Iran inuu sii soconayo inuusan sii soconaynin sidoo kale macnaha ishaga Donald Trump ayaa ka saaray listiga cabinet ama golihiisa wasiirada ayuu ka saaray madaxweyne ku-xigeenka iyadoo uu hogaamin jiray horaantii hore oo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka uu ahaa qofka ugu sareeya markii Donald Trump laga imaado shirarka caalamiga laga qayb galayo sidoo kale qofka horboodaha uu ahaa negotiationkii sidoo kale Iran iyo Mareykanka u socday in uu asaga qayb lixaad leh sidoo kale ka soo qaatay maanta Donald Trump iyo waliba maamulkiisa ayaa waxay ka hor istaageen ninkan J.D. Vance oo madaxweyne ku-xigeenka ah oo la karantiilay kadib markii la ogaaday in uu connection la leeyahay ninka lagu magacaabo Tucker Carlson waxaana macnaha si baaxad leh u falanqeynayo warbaahinta Mareykanka CNN ee ugu horeyso iyo waliba sidoo kale jaraa'idka caadiga ah ayaa soo qorayo oo ka sheekeynayo hawshan ayaa ah hawl cusub oo ku cusub Mareykanka sida aan ognahay ku-xigeenkii hore ee asaga xilka la soo qaatay 2017 ilaa iyo 2020 doorashadii doorashada looga guuleysanin ee Joe Biden uusan madaxweynaha noqon Donald Trump waxay sidan si la mid ah ayada oo waqtigiisii 2 sano ama 1 sano meelahaasi adiga inta hadda la qiyaaso ay uga dhiman tahay oo kale waxay sidoo kale arrimo la xiriiro doorashooyinka in Donald Trump isu dabamariyeen uu rabo wax macnaha ishaga illegal inuu sameyn rabo inuu rabo in sidoo kale xilka uu iska sii joogo iyo waxyaabo noocaas ah ayada oo waliba isla sidii iyo isla waqtigii hadeerna la joogo ay ku kala baxeen madaxweyne ku-xigeenkiisii hore ee lagu magacaabahay Mike Pence asagana oo aan ogeyn ayada oo aysan isku fiicneen oo sidan oo kale isku dirirsan yihiin uu xilka ka dhamaaday marka sanadaha ugu dambeeyso ama 2 sano ugu dambeeyso inuu la dagaalo sidoo kale ku-xigeenadiisa ayuu Donald Trump caan ku yahay oo horay uu soo sameeyay arintani ee cusbeen Donald Trump ayaa bedelkiisa madaxweyne ku-xigeenka wuxuu adeegsanayaa Marco Rubio kadib markii uu ogaaday inuu connection la leeyahay qolinkii Donald Trump ka goosteen sidoo kale ninkii lagu magacaabay Tucker Carlson Candace Owens Alex Jones inuu la xirtay ayaa la ogaaday madaxweyne ku-xigeenka sidoo kale waxaa la ogaaday in Bobka ama macnaha ishaga baadariga caalamka ugu weyn uu la saftay oo kala saftay arrimaha Iran uu ku noqnoqday Vatican wadanka la dhaho ee Talyaaniga ee dariska la ah magaalada Vatican ama wadanka caalamka ugu yar sidoo kale uu ku nool yahay baadariga ugu weyn adduunka ee Catholiga ay sidoo kale macnaha maadaama administrationka ama maamulka Donald Trump ninka ugu macnaha ay sheegay markii ay noqoto diinta Kristaanka ninka ugu adag uu yahay madaxweyne ku-xigeenka J.D. Vance waxyaabo badan uu fahansan yahay aanan dhinaca diinta Kristaanka ah laga marin ayaa wuxuu aad u xoojinayaa in uu xushmeeyo uu ixtiraamo Popka iyo fikrada uu ka leeyahay dagaalka Iran sidoo kale inuusan sii soconin waxyaabo noocaas la ajligeed ayuu cabinetka ama wasiiradan heerka sare ah ee la kulmahayo ninkan sidoo kale baadariga caalamka ugu weyn Vatican-ka aadahayo ayuu ka reebay Donald Trump waftigii ayuu madaxweyne ku-xigeenkii dhanna ka reebay sabab la xiriiro inuu connection hore uu la soo lahaa sidoo kale J.D. Vance uu macnaha kulamo la yeeshay ninka lagu magacaabo Tucker Carlson sidoo kale macnaha ishaga interview ay u balansan yihiin hadii wax isbedel ay imaadaan hadda iyadoo waliba sida ognahay sida kale inkastoo xilka ilaa iyo isla dhameystaan uusan Donald Trump xilka ka qaadi karin ninkan baarlamaanka Mareykanka maadaama sidoo kale ay ku badan yihiin ama asaga laga yaabo inuu xilka uu iska casilo si uu dhiiqadan ooga baxo ama uu uga galan gasho adiga wax isbedela inay soo baxaan laakiin arintan ayaa soo qaraxday hadda oo macnaha ishaga hot cake ah oo hawl cusub ah oo macnaha ishaga aqalka cad ka soo baxayso hadda telefishinada Mareykanka iyo waliba warbaahintana ay si xoogan macnaha u hadalhayaan hadda marka ninkan J.D. Vance lagu magacaabo ayaa sidoo kale waxaa la sheegay in connectionka uu la leeyahay xitaa uu gaarsiisan yahay wiilka asaga uu dhalay J.D. Vance in ay isla shaqeeyaan Tucker Carlson wiilkiisa iyo J.D. Vance oo madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka inay wada shaqeyn sidoo kale ay ka dhaxayso
howlahani ay kasoo wada hadleen sidoo kale intii madaxweyne ku-xigeenka JD Vance aana loo magacaabin in uu noqdo madaxweyne ku-xigeenka ama running mate uu macnaha Donald Trump ninka ka garab ordahayo madaxweyne ku-xigeenka u noqonayo intii uu ku soo loolenin waxaa sidoo kale positionkaas soo geliyay oo Donald Trump ka dhaadhiciyay ninkan inuu soo qaato ayaa sidoo kale la sheegaya in uu yahay Tucker Carlson sidoo kale waxaa la sheegaya xitaa senatornimadii uu macnaha senatorka ka ahaa gobolka Ohio inuu ninkani ka dambeeyay oo siyaasadiisa oo dhanba uu Tucker Carlson soo dhisay marka maadaama Donald Trump uu Tucker Carlson ka soo horjeedsaday sida aan ogeyn media oo dhan macnaha ishaga ku qolooyinkii conservative-ka ahaa ama cunsuriyiinta ama midigta fog ama right wing Mareykanka macnaha Donald Trump ku gacan saareen boolisiyadiisa dagaalka Mareykanka uu galiyay reckless-ka ah ama aan laga fiirsanin iyo waxyaabahaas oo dhan ay digniino ka siiyeen uga digeen balse uu dhageysan waa xitaa JD Vance ayaa markii macnaha uu arkay sida ay wax u socdaan isku dayay inuu fikirka Donald Trump bedelo ayadoo sidoo kale maalmihii la soo dhaafay intii dagaalkan xitaa inuu istaago ay howlahan u sabab yihiin oo ay ku kala dhiman gaareen asaga iyo JD Vance haddana maadaama uu Donald Trump go'aansaday inuu dagaalka Iran dib ugu qaado maadaama hadda ay sidoo kale tensionka ama macnaha ishaga dhaqdhaqaaqyada ee hadda isa soo tarahayaan Iran la leeyahay weerar ay marinka Hormuz ku qaaday isla maanta ayaa laga yaabaa Donald Trump inuu ciidamo ku daabulo sidoo kale sidii macnaha ishaga meeshii hawsha ay ku istaagtay uu ka sii wado laga yaabo marka Vatican-ka ninkan loo diyaariyay Marco Rubio ayaa sidoo kale wax macnaha ishaga aan ka fahansaneyn sida loo dhiilgareeyo ishaga Catholic-ga iyo waliba sidoo kale sida loo dhiilgareeyo ninka lagu magacaabo Pope Leo iyo sidoo kale inuusan xitaa macnaha ahayn qof ku xeel dheer arrimaha Catholic-ga iyo diinta oo sidoo kale Donald Trump maamulkiisa ama administration-ka markii la fiiriyo ninka ugu wanaagsan uu ahaan lahaa JD Vance balse khadka uu ka baxay sidoo kale waxaa la soo sheegayaa in JD Vance laga karantiilay shirarka degdega ah macnaha ay yeelanayaan militariga Mareykanka iyo waliba sidoo kale howlgallada degdega ah midnight visa macnaha ishaga weerarada habeenkii saqdhex la qaadayo arrimahaasi oo dhan sidoo kale gang of 8 qolooyinka loo yaqaano ee go'aamiyo Mareykanka markii uu xaalado khatar ah ku jiro waxa macnaha ishaga next level ama la sameynayo ee xigo go'aamiyo oo gang of 8 oo dimuqraadiyiin iyo republican isku jiraya sidoo kale ka kala dhuuntay ninkan sabab la xiriiro in uu Donald Trump kaga soo horjeedsaday arrimahan balse arrimahan ayaa macnaha waayadan ama isbuucyadii la soo dhaafay la qarinayo ayadoo sidoo kale media aan lagu arkin kadib markii lagu ooriyay asaga oo gobolka ishaga Georgia uga qayb galayo xafladii Turning Point markaas ayaan ugu dambeysay JD Vance asaga oo media ama telefishinada lagu arko Mareykanka ilaa iyo haddana cid aragtay asaga oo meel public ka hadlay dabcan marka taasi ayaa waxay ku tusaysaa in macnaha ishaga kala fogaansho ay jiraan oo Donald Trump iyo ninkan ay kala fogaadeen CNN ayaa falanqeynayso sida ay wax u jiraan wax yar muuqaalkii la daawo Tucker's comments were fascinating for a number of reasons, including that, Tucker is one of the reasons that JD Vance is vice president. Tucker Carlson hosted JD Vance on his show a lot during the 2022 Ohio Senate race primary to try to boost him. He's also the one that kept telling Trump to pick JD Vance for vice president, and he has been very openly talking about JD Vance running for president in 2028. Now, some other Republicans just see Tucker's commentary as a little conspiratorial. And yes, there are some people in the White House that don't love J.D. Vance, that think he's a little too online, that he, it can be a little too undiplomatic, as, even Donald Trump has sort of signaled in comparing him to Marco Rubio. But there is a lot, the fact that Tucker Carlson has broken distinctly with Donald Trump, but he has still tried to manage a really good relationship with JD Vance is fascinating. It's also worth noting that Tucker Carlson's son was working for JD Vance until just recently. xitaa waxaa la sheegayaa JD Vance inuu shaqaaleysiiyay Tucker Carlson wiilkiisa sidoo kale sida arkayseen waxay CNN sheegayaan in ninkan JD Vance iyo waliba isheegay sidoo kale Tucker Carlson xiriir aad u qoto dheer uu ka dhaxeeyo uu ahaa ninkii sidoo kale Ohio Senate-ka inta uusan senator-ka noqonin soo dhisay midiyihiisa ku casuumay soo caan bixiyay sidoo kale Donald Trump markii ay heshiiska ahayn ku tashkiiliyay in macnaha asaga madaxweyne ku xigeen loo soo bigarayo ama loo soo qaato
haddii uu muuqaalkan kusoo gaaro wax fikirkaada nala wadaag sidoo kale muuqaalka like noo saar naguna soo biir waa maasanta